waxaa shalay magaalada Kampala ee caasimada dalka Uganda gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda federalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii casuumaad uu ka helay madaxweynaha dalkaasi. Madaxweynaha jamhuuriyadda federalka Soomaaliya ayaa la filayaa inuu ka qayb galo shirweynaha looga hadlayo arrimaha qaxootiga sidii looga hortagi lahaa sharciyada adag ee ka jira qaaradda Yurub iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan dadka ku tahriibaya badda Mediterranean-ka ee u dhaxaysa dalalka Liibiya iyo sidoo kale dalka Talyaaniga. magaalada Kampala ee dalka Uganda shalay waxaa tagay madaxweynaha dalka Ghana Alveya Victor Okaya sidoo kale waxaa halkaasi gaaray madaxweynaha dalka Gabon Ali Bongo iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sidoo kale waxaa halkaasi gaaray madaxweynaha dalka Zambia Aidar Linguni iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn iyo sidoo kale xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. maanta waxaa la filayaa in halkaasi ay soo gaaraan madax kale oo ka socda qaaradda Yurub iyo beesha caalamka. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa booqashadiisa ku weheliyay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka gaashaandhigga, wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo sidoo kale xildhibaano labada gole ka tirsan. sidoo kale madaxweynaha martida loo yahay ee Yoweri Museveni ay ka qayb galayaan shirweynaha labada maalmood soconaya oo lagu taageerayo isbarbartaagida arrimaha la xiriira qaxootiga. shirkani ayaa magaalada Kampala waxa uu ka furmay maanta oo ay taariikhdu tahay 22 bisha Juun. sidoo kale waxaa la soo gabagabeyn doonaa maalinta birita oo ay taariikhdu ku beegan tahay 23 bisha Juun. Uganda ayaa iminka martigelinaysa 1 milyan iyo sidoo kale 200 oo qaxooti ah waxaana la filayaa in ay ururiso lacag dhan 2 bilyan oo dollar taasi oo lagu caawinayo qaxootiga labada sanadood ee soo socda. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana marka uu shirkani uu soo idlaado waxa uu kulamo la qaadan doonaa qaar ka tirsan madaxda shirkaasi ka qayb galaysa. sidoo kale waxa uu xalay kulan la yeeshay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo kala hadlay arrimaha ku saabsan Soomaaliya iyo sidii wax looga qaban lahaa qaxootiga Soomaaliya ee ku dandaraysan dalka Kenya iyo dalal kale. waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sidoo kale kulamo la qaadan doonaa madaxda ay ciidamada ka joogaan gudaha dalka Soomaaliya. Ibrahim Maxamuud Diblaawe